gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cid injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta ka soo qayb galay madal ay ku qalin jebinayeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka halkaasi oo hadal ka soo jeediyay ayaa waxa uu sheegay kana hadlay isbedelka ka yagleelan kana tisqaada geeska Afrika waxaana uu tilmaamay muhiimadda iyo danaha ay Soomaaliland u leedahay ka qayb qaadashada isbedelka isla markaasina gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cid waxa uu dhaliilo kulul soo jeediyay mas'uuliyiinta kala duwan ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hogaamiyo kaasi oo ku dhaliilay inay haba yaraatay ka qayb qaadanin amadashii lagu gurfinayay siyaasadda Soomaalida ee ka socotay muddooyinkii u dambeeyay dalka Djibouti kaasi oo maalintii shalay ku soo gabagaboobay isla magaaladaasi Djibouti sidoo kalena waxa uu tilmaamay in ku habooneyd shirkaasi in Somaliland lagu qabto isla markaasina ay gool weyn u tahay bulshada reer Somaliland geeskan marka waxa ka socotay isbedel weyn ka socda isbeddelka weyn inkastoo dadka wada aanay dad xitaa madaxda wada aanay dhulkoodu aanu ahayn dhul degan ay la ka tahay laakiin waa vision soo socdo maalin iman doona in geeska confederation laga sameyn doono Hong Kong la isku furi doono uu iman doona laakiin marka tan socotaa waxay u eg tahay laabla kac ee wili concern weyn oo ku leenahay hadaan Soomaaliland laano maanta Soomaaliland oo ogtay meel ay joogtaba maaha dal maanta negotiation geli kara dad maanta midaysan maaha marka inaga reer Djibouti arinta oo wada marka aanay reer Soomaaliya wadaan dawladda Soomaaliya ee maamulka Muqdisho laba sano u harsan yihiin waxa weeye inaynu aad iyo u ilaalina oo Soomaaliyaanba maaha Soomaaliya kaliya inaynu arinta iska jirnaaba weeye conference ba ka socday leeyahay shanta Soomaaliya aqoon-yahan inta isku yimi waa meelaha aynu magaalada sayqadiyadeena ku yimi karnaa weeye meelaha kaayma Djibouti laga sameeyo kale hadaynu dalkeena ku qabano oo aynu dadkeena tusna keyskeena tusno oo aynu si fiican u daafacno oo aynu ka iibino Soomaalida shanta geeska wadagan daacad ugu maaha shalay way arkisay markay ku weyn hadliyeen way xishoonayeen moogta qadiyada laga xishoodo si adag qaar way baritoomiyaba ay bariyeen laga waxaan leenahay waa meelaha aynu u baahanahay inaynu arinteena ka wadnaa weyn Umar Cabdi Ahmed Karimle Kalsan TV Hargeysa